taliyaha cusub ee dhawaan loo magacaabay saldhigga dhexe ee magaalada Kismaayo Maxamed Cabdi Buule Sugow ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda ammaan ee magaalada Kismaayo xilli la bedelay taliyihii hore ee saldhigga Deeq Ismaan Axmed Qalinle. Haddaba taliyaha cusub ee loo magacaabay saldhigga ayaa sheegay in howlgallo ballaaran ay ka sameyn doonaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo, howlgalladaas oo lagu sugayo amniga magaalada. insha Allah waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan waxaan ku jirnaa diyaar garowgii xafiisadii nidaamkoodii askartii dubaridkeedii insha Allah waxaan rajaynaynaa shanta xaafadood xaafadebele kuma dhaayla shanta howlgal ballaaran oo amniga lagu sugayo ka bilaaban doona Ilaahay halka noqdo. insha Allah waxaan rajaynaynaa cadaalad inaan u sameeyno gacantana aan ku dhigna cid kasta oo dambi leh cid dambilaana waa iska sii dayn doonaa cid dambi lehna dambigeeda ay ku qaad doonaa cid laaluush iyo xaq darro aan ka qaadan doonaa ma jirto. waxaan u sheegnay in heegan diyaar loo ahaado si dadka loo badbaadiyo dhibaatada iyo xaaladaha ay ku jiraan looga hortago. marka sidaa darteed howlahaas ayaan qabanay dhammaan saraakiisha ciidamada qalabka sida annagoo gacan ka helayna sida Generaal Saxardiid iyo gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Axmed Madow maamulka meelgaarka iyo gudoomiye xogeenkiisa annagoo gacan ka helayna iyo taliyaha ciidamada guutada koobaad ee xoogga dalka Cabbaas. dhammaan waxaan gaarnay in go'aanka annaga aan fulino waana noola soo igmaday. annagana waxaan ballan qaadaynaa ummadda Soomaaliyeed u ballan qaadaynaa inaan fulino go'aanka asaga ah iyadoo oon dhiiganaga iyo naftanada u horeyna. waxaan u baaqayaa marka dadka dhammaan bulshada Kismaayo ee magaalada ku dhaqan sida culimada, siyaasiyiinta, waxgaradka, ururada haweenka, ganacsatada dhammaan waxaan ugu baaqayaa in nala shaqeeyaan. dhanka kale taliyaha saldhigga ayaa waxa uu ka hadlay burburka soo wajahay saldhigga isagoona sheegay in ay jiraan ballanqaadyo ay sameeyeen mas'uuliyiinta maamulka ku-meel gaarka ee ka arrimiyay magaalada Kismaayo, ballanqaadyadaas oo ku aadan in ay dhisi doonaan qeybaha uu ka burbursan yahay saldhigga. dhammaan ciidamada qalabka sida saraakiisha sarsara waxayna noo sheegeen in ay dayactiri doonaan stationka oo ah rugta laga maamulo gobolkan xafiisyada meelaha kale ee xabsiyada dhammaan amar ayaa lagu bixiyay. insha Allah bidmillaah karim marka waxaan rajaynayaa in si degdeg ah shaqadaasna aan u dhameeyno oo stationka si fiican u dayactirno mar wadi Ilaahay halkan. Cabdiqadar Iimaan Dhaqane, Home Cable TV, magaalada Kismaayo.